Bismillah. Maanta oo taariikhdu tahay 12 bisha 11aad 2019 maxkamadda racfaanka waxay qabatay racfaan ka yimid eedeysana Fartuun Xuseen Cali Sheekh loona yaqaan Fartuun Balbalaarka. Maxkamadda Sinaanta iyo Cadaaladda waxay hore xukun dil toogasho ugu xukuntay eedeysana Fartuun Balbalaarka. Sidaa darteed, qareenada u doodaya eedeysana Fartuun Balbalaarka waxay maxkamadda racfaanka hor keeneen cadeymo taas oo la xiriirta xukunkii dilka ah ee lagu fuliyay eedeysana Fartuun Xuseen Cali Sheekh. maxkamadda racfaanka markii ay aragtay cadeymaha dhageysateen heesaha Fartuun Balbalaarka waxay maxkamadda racfaanka ku qanacday cadeymaha. sidaa darteed, maxkamadda racfaanka waxa u caddaatay in Fartuun Balbalaarka aysan wax dambi ah gelin, fankan aysan meel uga dhicin. maxkamadda racfaanka waxay soo saartay in xukunkii dilka ah ee lagu xukumay eedeysana Fartuun Balbalaarka uu yahay mid waxba kama jiraan ah oona lagu fududaaday. sidaa darteed, maxkamadda racfaanka waxay soo saartay amar ah in Fartuun Balbalaarka ay sii wadan karto heesaheeda. sidoo kale, maxkamadda racfaanka waxay maxkamadda Sinaanta iyo Cadaaladda ugu baaqaysaa in ay ka fiirsato xukunada ay ku ridayso eedeysanayaasha taasoo u keeni karta sharaf dhac. sidoo kale, maxkamadda racfaanka waxay maxkamadda Sinaanta iyo Cadaaladda ku xukuntay in ay magdhow ahaan $1,000 siiso Fartuun Balbalaarka sida ugu dhaqsiyaha badan, maadaama ay ku xadgudbeen shakhsiyadda eedeysana Fartuun, una xukuntay dil toogasho oo aan laga fiirsan ku keeni kartay wadne xanuun ama uu halis gelin karay nafsadeeda. maxkamadda racfaanka waxay ku amraysaa maxkamadda Sinaanta iyo Cadaaladda in ay amarka maxkamadda racfaanka fuliso, dhowrtana sharafka muwaadinka Soomaaliyeed. maxkamadda halkaas ayay nagu xiran tahay.